فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. السلام عليكم. haddii aad tahay qof caanaha caba aan kugula taliyo inaad koob caano jeex yar oo toon ah kadibna aad cabtay muddo bil ah oo xidhiidh ah isla markaana aan kuu sheego 8 faa'iido oo dhinaca caafimaadka ah oo jidhka ay u leeyihiin marka toonta iyo caanaha la isku daro marna la wada isticmaalo waxayna yihiin 8 faa'iido jidhka u leeyihiin toonta iyo caanaha la isku daray sidan soo socota. cilmi baarisyo badan oo lagu sameeyay toonta iyo caanaha la isku daray marna la wada isticmaalo ayaa lagu sheegay hoos inay u dhigaan ay dawada ka yihiin xanuunka loo yaqaan macaanka gaar ahaan markuu qofka ku cusub yahay. 2 waxay dawada ka hortag ka yihiin xanuunka cholesterol-ka waa marka labadan shay oo la isku daray muddo bil ah la wada isticmaalo oo xidhiidh ah. 3 waxayna hoos u dhigaan oo yareeyaan halista ku keeni karo xanuunka dhiigkarku waa marka xaddiga laga isticmaalayo toonta inuu badan. 4 cilmi baaris lagu sameeyay ayaa la sheegay marka labadan shay la isku daro 50% inay ka hortagaan xanuunka kansarka sida mindhicirada ku dhaca. 5 waxay xoojiyaan caafimaad qabka lafaha waxayna yareeyaan gaabiska ku dhaca iyo xanuunada ku dhaca lafaha gaar ahaan markay dadku weynaadaan. 6 waxayna hoos u dhigaan miisaanka badan ee jidhka waxayna wanaajiyaan caafimaad qabka dheefshiidka iyo gaar ahaan uurku jirta. 7 waxayna kor u qaadaan caafimaad qabka iyo dhiigga nadiifiyaan waxayna jidhka nadiifiyaan cuntooyinka la cuno qaarkood sunta ka timaada. 8 waxay jidhka ka saaraan fayraska waxayna qofka kaxeeyaan finanka ka soo baxa wejiga ayna ka bi'iyaan qofka. waa marka koob caana oo wax yar aad diirisay aad ku dartay jeex yar oo toon ah kadibna aad u isticmaasho muddo bil ah si xidhiidh ah.